السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعنا وناكسن ميل كاستو aad nagala socotaan halkan waa wargeyska geeska Afrika ku soo dhawaada qodobada wararkayga ugu doorka roon leh. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka guuriyay gurigiisa New York kadib markii mas'uuliyiinta gobolkaasi maamula ay si xun ula dhaqmeen sida uu sheegay. dalka Eritrea ayaa waxa uu shaaciyay si ay Mareykanku ay la damacsanaayeen Afgambi dawladda dalkaasi maamusha. Djibouti ayaa waxa ka dhacay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Geelle. Allah u naxariisto waxa magaalada Hargeysa xalay ku geeriyooday isla markaasna saaka lagu aasaya taliyihii ciidamada booliska ee Somaliland Cabdullaahi Fadel Imaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday inuu ka guurayo gurigiisa ku yaala New York isla markaasna uu guuri doono guri uu ku leeyahay gobolka Florida. waxa uu sheegay in sababta uu go'aankaasi u gaaray ay tahay siyaasiyiinta ku sugan New York ay isaga si xun ula dhaqmeen. madaxweyne Trump ayaa ku dhashay magaalada New York. Barasaabka New York Andrew Cuomo iyo duqa magaaladaasi Bill ayaa ka soo horjeestay siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka ee haatan Trump. labaduba waxay ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga inta badan waxa uu kala kulmaa Trump adeeg siyaasadeed. waxay labadii mas'uul soo dhaweeyeen go'aanka Trump uu ugu guurayo Florida isla markaasna uu kaga wareegay magaalada New York oo uu degan. dawladda Eritrea ayaa soo saartay in hay'adda CIA ee Mareykanku ay ka qayb qaadatay afgambi lagu doonayay in lagu afgambiyo madaxweynaha dalkaasi Siyaas Safawargi. waxaa Eritrea ay soo saartay sanadkii 2011 laanta sirdoonka ee CIA ay la damacday inay meesha ka saarto nidaamka dalkaasi iyadoo taageeraysa xoogag dawladda gudaha lagaga furayo. waxaana warbixintan sidoo kale lagu sheegay in kulamada hawlahan afgambiga lagu qorsheynaya ay ka dhaceen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. isla markaasna laga shaqeeyay in ciyaartooyda Eritrea ay dalal kale iska dhiibaan isla markaasna ay dalkooda ku soo laaban waayaan. waxaa sidoo kale warbixintani lagu shaaciyay in Ethiopia waqtigaasi la siiyay xog badan oo ku saabsan ciidamada Eritrea inkasta oo aanu noqon afgambigaasi mid guuleystay. qowmiyadda Canfarta ee dalka Djibouti ayaa dibadbaxyo waaweyn ka dhigtay gudaha magaalada Djibouti iyo waliba magaalooyinka kale ee dalkaasi iyagoo ka gadoosan mid ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada ee Canfarta oo la xidhay. waxaana xadhigiisa kadib dhacay mudaharaadyo ka bilaabmay xaafadaha Canfartu ay ku leedahay Djibouti iyo qaar ka mid ah gobolada dalkaasi. sida ay sheegeen hay'adaha madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka waxa la xidhay dad tiro badan. waxaa sidoo oo kale boolisku rasaastii ay ridayeen ku dhintay tiro dad ah oo ka mid ah kuwii mudaharaadayay. ninkan la xidhay ayaa waxa uu ka tirsan yahay xisbiga ARD. Allah u naxariistay waxa xalay magaalada Hargeysa ku geeriyooday taliyihii guud ee ciidamada booliska sareeye gaas Cabdullaahi Fadel Imaan oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsanayay. Allah u naxariistay marxuum Cabdullaahi Fadel Imaan ayaa la filayaa in maanta lagu aaso magaalada Hargeysa. taliyahani geeriyooday ayaa waxa xilkaasi loo magacaabay Abriil 2012 waxaanu intaasi ka hor ahaa hogaankii hawlgelinta oo muddo dheer xilkaasi soo hayay. dawadayaal intaasi waxa ku ee guud ahaanba warkaan idin haynay tan iyo kulanti dambe waan igo Maxamed Taajir iyo Bahda Geeska Afrika oo idinku soo dhaafay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.